صاحب هذا بيجك كعصبتها ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفقada dhirtu u baahan tahay casharkii afraad ayaan maanta qaadanayna haddii ilaahay yiraahdo wuxuuna ku saabsan yahay curyaha loo yaqaano potassium naanaysta curyaha potassium waa K ama xarafka K waa curyaha 19aad ee kalgalka curyayaasha potassium waa bir ka mid ah ururka koobaad ee kalgalka curyayaasha tiro atomkiisu waa 19 halka culays atomkiisuna ka yahay 39 kaaftoonkiisu waa +1 potassium wuxuu ka mid yahay curyayaasha dhirta dhex socda sidee ayuu dhirta u dhex soconayaa macnaha loo jeedaa waxay tahay geedka qaybihiisa kala duwan ayuu si sahlan isaga gudbaa macnaha qaybta hoose xididka intuu ka tago ayuu wuxuu tagayaa baarka ayuu ka imaanayaa hoos ayuu imaanayaa macnaha inuu geedka dhexdiisa isaga kala gudba ayaa sahlan dhirtu waxay nuugtaa isaga oo ah ayoonka potassium ama K+ dhaqdhaqaaqiisu waa yar yahay carrada dhexdeeda inuu guurguuro waa gaabis oo sida nitrogenka uma dhaqmo si degdeg ah wuxuu ku lug leeyahay dhismaha borotiinada waxaana lagu tiriyaa nafaqooyinka lagama maarmaanka ah ee dhirtu u baahan tahay yaraantiisu waxay keentaa inay bataan amino acidyadu iyo inaysan isu bedelin borotiin saad ogtihiin amino acidyadu waxay base u yihiin ama asaas u yihiin in la sameeyo borotiinada sidaa daraadeed borotiinadii ma samaysmayaan hadduu yaraado potassiumkii waxaana badanaya amino acidyada geedka dhexdiisa bacrimiyaasha laga helo potassium curyaha potassium bacrimiyaasha laga helaa waa kuwee midka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa murate ama potash waana potassium chloride chemical namekiisa tirada wuxuu marka waxaa ku jira potassium oxide oo 60% potassiumkuna wuxuu noqonayaa isagoo kaligiisana wuxuu noqonayaa 49.8 fertilizerska laga helo ama maxay raada bacrimiyaha laga helo potassium waxaa ka mid ah potassium sulfate asagana 50% waxa weeye potassium oxide 41.5 waxa weeyaan potassium sidoo kale potassium nitrate ayaa ka mid ah 44% waa potassium oxide 36.5 waa potassium waxtarka potassiumka potassium wuxuu muhiim u yahay sameynta iyo gudbinta sonkorta ee geedka dhexdiisa macnaha walxaha tamarta laga helo oo geedka uu sameeyo ama cuntada aan cunayno base waxa uu ah sonkor ama glucose ayada inay samaysanto oo la transfer garay la gudbiyo meelka loo gudbiyo waxa ku lug leh ama mas'uuliyadaas iska leh maxaa yiraahdaa potassium wuxuu muhiim u yahay sameynta iyo gudbinta sonkoraha geedka dhexdiisa wuxuu gacan ka geystaa yareynta sonkoraha wuxuuna u bedelaa starch ereyga yareyn yani dadka chemistryga bartaba yaqaanay waxa jirta wax la yiraahdo yareyn iyo oxidane yareyn waxa loola jeedaa markii compoundiga lagu daro hydrogen ama laga bixiyo oxygen marka sonkortii ayaa waxa loo bedelayaa ahayd glucose ayaa waxa loo bedelayaa starch ama nasha luqadda carabiga sida lagu yiraahdo jiritaankiisu wuxuu muhiim u yahay shaqada ilays cunto ku samaysashada jiritaankiisu wuxuu muhiim u yahay shaqada ilays cunto ku samaysashada dhirta photosynthesis process macnaha maxaa loola jeedaa dhirtu ayaga ayaa waxay sameysaan cuntadii ay ku noolaan lahaayeen isla markaa noolaha kale cuntadii ku noolaan lahayn dhirta ayaa sameysa marka shaqada ilayska cadceeda iyo maaragtay carbon dioxide iyo biyaha loogu bedelayo cunto ama glucose hawshaas iyada ah waxay muhiim u ah oo laga maarmaan u ah in la helo potassium sidaa darteed baan waxaan leenahay jiritaankiisu potassium inuu geedka ku jiro oo joogo waxay muhiim u tahay shaqada ilays cunto ku samaysashada ee dhirta wuxuu gacan ka geystaa in dhirtu si fiican ciidda uga soo nuugto nitrogenka wuxuu xoojiyaa u adkaysiga dhirta ee cudurrada qaarkood wuxuu yareeyaa biyaha uumi ahaan uga baxa caleemaha dhirta transpiration process wuxuuna badiyaa u adkaysiga dhirta ee biyo yaraanta oonka wuxuu xoojiyaa caleemaha iyo laamaha wuxuu muhiim u yahay qaybsamida unuga cell division wuxuu kaalin muhiima ka qaataa ka raridda borotiinada
iyo carbohydrate-ka ee caleemaha iyo geynta meelaha lagu kaydiyo sida miraha iyo xididada iyo buruqda. taa macnaheedu waxa weeyaan borotiinka iyo carbohydrate-ku waa waxyaabaha cuntooyinka oo nafaqada oo bani aadamku u baahan yahay amaba dhirta laftirkooda ay u baahan yihiin inay isticmaalaan. sidaa daraaddeed caleemaha markii lagu sameeyo oo lagu diyaariyo potassium isaga ayaa kaalin muhiima wuxuu ka qaataa sidii meesha looga rari lahaa oo loo geyn lahaa meelaha lagu kaydiyo. waxaana lagu kaydiyaa maxaa idhaahdaa miraha, sidoo kale waxaa lagu kaydiyaa buruqda sida baradhada iyo maaragtay bataati macaanka iyo waxyaabaha la midka ah iyo sidoo kale xididada. waayahay waa maxay astaamaha potassium yaraanta? yacni curyaha potassium inuu geedka ku yaryahay astaamaha lagu gartaa maxay yihiin? waxaan kaa codsanayaa inaad fiiro gaara u yeelatay sawirada aan background-ka ka dhiganay, sababtoo ah waxay tilmaamayaan calaamadna u yihiin in potassium uu ku yaryahay sawirka meesha kaaga muuqda. ugu horeyn astaamuhu waxay ka muuqdaan caleemaha hoose ee geedka ama caleemaha duqoobay. ugu horeyn darfaha caleenta ayaa jaalle khafiifa noqota sida aad ku aragtaan sawirka noo ah background-ka. kadibna waxaa jaalle noqda xididada caleenta. darfuhuna waxay isu bedelaan midab kafee tikh ah, waxaana xaaladaas lagu magacaabaa gubasho. waxaa siyaada oo nuglaanta cudurka marka ay badato nitrogen-ta ku milan geedka. waxaa siyaada u nuglaanta cudurrada marka ay badato nitrogen-ta ku milan. waxaa daciifa soo saaridda miraha, iniyaha tayadooduna way yaraataa. waxaa daciifa soo saaridda miraha, iniyaha tayadooduna way yaraataa. astaamaha yaraanta potassium ee ka muuqda geedka waxaa suuragal ah inayna sabab u ahayn potassium oo ku yar, ee waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay geedka oo nitrogen badan nuugay iyada oo potassium ku filan carrada ay ku jirto. macnaha curyaasha way isa saameeyaan oo mid hadduu zaa'id u bato waxaa laga yaabaa inuu hor istaago mid kale in si fiican loo nuugo. sawirada kuu muuqda waa yaanyo caleemaheeda iyo miraheeda. dhammaan calaamadaha ka muuqda waa calaamado muujinaya potassiumku inuu geedka ku yaryahay. marka waxaan rajeynayaa si taxadar leh inaad u fiiriso calaamadaha oo aad u xifido. sidoo kale geliyada meeshan kaaga muuqata calaamadaha ka muuqda dhammaantood waxay tusinayaan nafaqada loo yaqaan ama curyaha loo yaqaana potassium inuu geedkan ku yaryahay. waxaan rajeynayaa marka hadda ka bacdi beertaada marka aad aragto inaad aqoonsan doonto marka uu ku yaryahay potassium iyo marka cilado kale ay jiraan. جزاكم الله خيرا. عشركينا مانت انت سيكو اوغيه اد بان idin salaamaya. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا هدي 10 ka aad wax ka faa'iiday ha ku bakhaylin inaad tiraahdid subscribe.